السلام عليكم akhyaarta meel kasta aad joogtaan waan salaamaya waxaan la hadlayaa dadka Edmonton ninkii jaamac Yellowman aha aad iyo aad buu xanuunsan yahay si xun baa loo qaraacay ninka hadda bishii afraad uu meesha ku jiro ilaa hadda ma hadli karo hadal laga ma hayo madax dadka markay u yimaadaan wuu kala garanayaa qofka wuxuu yahay laakiin qofku ma jawaabi karo marka waxaan leeyahay ninkaas laga warqabo waa jaamac Yellowman waa ninka ogeydeen waa nin fiican waa nin aad iyo aad fiican oo dadkiisa jecel marka in laga warqabo waayo xanuunka la iskuma naco moogta qof adiga laftigaaga waxa laga yaabaa maalin inay sidoo kale marka dadka Edmonton aan la hadlayaa ninkii hadda wuxuu joogaa isbitaal oo ku yaala Jasper iyo 111 Street iyo Jasper General Hospital la dhahaa 4th floor ku joogaa ana waa u tagay saakan u tagay waxba camera iyo waxba laga ma duubi karo mana aan rabno in aanu ka duubno because ninka wili conditionkiisa aad bay u xun tahay ninka aad baa loo gubay wajigiisa waa la gubay waa la qaraacay jug xun baa ku maqan mid kale wajiga baa laga gubay soo wajigiisa oo dhan wixii skinkii oo dhan baa soo fuqay oo si xun ninka dad aragtay ma garanaysiba la skinkii oo dhan baa isbedelay oo waxa arkaysaa inuu guban yahay wajigiisa oo dhan inuu guban yahay maahan hal meel maaha inta yar wajigiisa oo dhan waa la gubay ninkan inay dilaan kookasiyaan bay ahayd bay rabeen ilaahay baa badbaadiyay ilaahay baa caafimaad ku bixi haddana alxamdulillah wuu soo roonaanayaa laakiin ninka laga warqabo ha loo tago Soomaalidiina intaas ay sheegayaan ninka laga meel fogna hadda ma jiro waa Jasper iyo 111 uu joogaa Jasper iyo 111 General Hospital 4th floor magaciisu waa Jaamac Ali saa ula socda haddii aad GoFundMe page iyo waxaas dad u bilaabaysaan waa u bilaabi kartaan haddii uu rabo meesha inuu ka soo baxo si guri diyaar u sii helo oo lacagtiisa uu ku kireysto meel kale oo by the time ninkan guri asoo degan baa la dilay 5 bilood 6 bilood iyo 5 bilood ma qaxday isbitaalku haduu ku jiraa wali marka gurigaas waa cancel markuu soo baxo guri uu ku soo baxo u baahan yahay Soomaaliya iska warqaba Soomaaliya wakaas jaamac waa ninka kaliya nooc carrirayay oo wadankan dadka shaqooyinka fiican haysto dhan ninka ka dambeeyay waaye waa nin fiican waa nin aad iyo aad fiican marka ilaahay waxaan baryaynaa caafimaad khayr qaba iyo cimri dheer intaas iyo nabadgelyo